بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقا وحال إلهذا أبشر محمد آذن ديري وحانا هاي نين صومالية وصوماليا كنولا انت بدن عمري بيسا قبل هذا كالدولة صوماليا نسيب أهلي إنو وضا مرد مانتود أو برتو طبيعة يددك كنولي habka ay sida ay u dhaqmaan iyo caadooyinka iyo qolo waliba meesha ay degan tahay deegaankeedu wixii dhaqana waxaan rabaa halkan inaan ku soo gudbiyo baaris muddo dheer qaadatay oo aan ku jiray hawsha aniga oo shiinsanaya in aan muddo dheer ka shaqaynayay saxaafadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradii warfaafinta dalka Soomaaliya xilligii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya ay dalka ka talinaysay iyo intii ka dambeysaba waxaan rabaa natiijooyinka baarista aanu sameynay muddo dheer qaadatay inaan soo gudbiyo shacabka Soomaaliyeed oo ay la wadaagaan qof waliba siduu aragtidiisa asaguna ugu dabaqo u arko waxyaabaha aanu isleenahay way u baahan tahay shacbiga Soomaaliyeed in loo soo gudbiyo waxaan ka bilaabayaa maanta anigoo jooga magaalada Muqdisho magaalada madaxda Soomaaliya aniga oo jooga ayaa waxaan jeclaan lahaa horta inaan ka bilaabo Muqdisho magaaladani waxay sami la tahay oo mataan la tahay Baytul Maqdis waxa uu dambeeya siin tanina waa Maqdish shiin baa dambeeya labadooda saasay iskugu taxan yihiin macnaheeduna waa barakaysan dhulkii barakaysnaa weeye macnaheedu haddaan intaa uga gudbo magaalada Muqdisho sifaynteeda inkastoo aan la gaari karayn waxaan rabaa inaan ka bilaabo taariikhda nabiyullaahi aadam calayhi salaam sida ay ula xiriiraan dhaqanka iyo luqadda Soomaalidu sida ay ula xiriirto waxaan ka bilaabayaa aadam calayhi salaam nabiyullaahi aadam calayhi salaam waa madoobe aadam waa madoobe aadam dalkii baa damay waa dam waa mugdi meeshii macnaheedu waa madoobe ninkii si fiican ugu fiirsadaana dhoobadii ilaahay uu ka abuuray nabiyullaahi aadam processkii ay martay iyo marxaladii kala duwanaa oo ay dhoobadaasi martay waxa ugu dambeeyay in la dubo dhoobada wixii dab galaana way madoobaadaan inta sida loo yaqaano haddaad walaal cad dab ku dhajiso wax madow baa soo baxaya haddii aad eegto canjeelada gabdhuhu ay noo dubaanna waxa soo baxaya inay meesha dabka xigto salka ay ka madowdahay marka maadaama dhoobadii la dubay waxaanu halkaas automatically si degdeg ah uga qaadanayna in nabiyullaahi aadam calayhi salaam midabkiisu uu madoobaa halka ilaahay ku abuuray ee uu deganaa waxaa la yidhaahdaa janno oo macnaheedu yahay baahi ma jirto janka waxaa loo isticmaalaa gabdhaha uurka leh laakiin waa baahi oo waxbaa la jantay meel wax looga baahan yahay baa la joogaa dhulka baahi baa jirta no baa ku xigta oo ma jirto wax loo baahan yahay maxaa dhacay sida ilaahay noo sheegay qalbigaaga wixii ku soo dhaca hortaada yaaliino gacantaada gaarta marka cidina waxuma baahna weeye macnaheedu waxa soo raaca in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi dega hoobta baa ilaahay ku yidhi asaga iyo xaawo kadib markii ay ganaax ku dhacay oo ay cuneen geed la yidhaha cunanina waxay caddaynaysaa taasi ninkii qur-aanka yaqaanaa waxay caddaynaysaa jannadu inay ka korrayso dhulka bini'aadamku uu ku nool yahay maxaa dhacay hoobtaa ilaahay yidhiye kor u kacaana ma dhihin sidmadana lama dhihin hoobtaa la yidhi markii ay soo dhaceen dhulkay ku soo dhaceen maxaa dhacay ilaahayba wuxuu u abuuray waxay ahayd inuu dhulka asaga iyo awlaadiisu ay ilaahay wakiil uga noqdaan ayay ahayd khaliif uga noqdaan dhulka markay yimaadeen waxay ku soo hagaageen xilli habeena xilliga habeenka
نبي الله آدم وحاو كل عيمال أبو تحاونا مال كلا يكون عضي أنا هول مرينو أبو تحاو وحيكون عضي قبل كل هذا قدر الصومالي كتر سنة قدر معناه وحوي أيي أما أبوت مدار استعماله كذا أيي وحيسمي لطة وليه قبل كاسي مقالة كنت على السعودية هي أنه أن جدة وآخرينه لكن لغة أصل كانوا لهين أنه هي مصالده إن أنتين غير وآخرينه وحي نقول السالوه كذا أي نقول ما دام حل وهبين وها أي صول عظيم أبو تحاو وها أي ساحتي ماشي اللي يلاهدو بول حاو ماشي اللي يلاهدو أي ساحتي مركي واجو بريء أبو تحاو وها واجب كوها أو أي نفتي أي جعلان لهي إن يهشوا وهالكيدي دبنا وحي سما سنقاق أي كوبا دونيسو نبي الله آدم عليه السلام markay muddo yar socotay Abu Tahawo waxa ay tagtay Madheera waa ereyga laga hayo Madheera oo macnaheedu yahay Nabi Aadan wehelkeedii ahaa Madheera markii ay tagtay ka weysay waxa laga maarmaan noqotay inay socod dheer gasho oo xagga dalow ay u aado jihadaas ay u socoto oo dolowgu macnaheedu وصعد كله ويه هل كايو مركز دولة وسوادي نبي الله آدم عليه السلام أسوي نوحه كل عين هويكي مركز جنة اللي جسودي ماشي اللي هذا مستحيل ومعناه يعني وأوحى النعي كذي وحاد عين وحأقول لكم من نبي الله آدم وحأن وخري ولي يمكن أيو لكم وحكم ذها وأنو كحسينا إنه صار حل مجدية أيضا آيين جنده مجدي شرين وأنا مجدي قلقاقون وحولي لوا مستحيل إن يرمرقوا جوغي وحود دراي مع عبسي جنده عبسي لقى ما أقول مركوا ولول كي عبسي داركي عندنا وحولي لوا مستحيل إن يردوا جوغي وحا وحود دراي عوردي سينو أكبر جنده عورة ملعين هذا هو مستحيل إن يرمركوا هذا الجوجي وحاقبتي كاذي باقبتي جنده كاذي ملهين وحير هذا هو مستحيل مركز شناد ورح ذي باكوسو بحضي جنده ورح ملهين هذا هو حير هو مستحيل ما يوصل قولين باشا حد قام وين آت كأوله افتيك حوق بدل له ما لقاه قولين جنده وجنده ورح ما يجري markii waagi uu bariyay ayaa waxa asagana waajib ku ahayd oo ku qoray inuu aado oo ku noqdo jannadii sidaas raadin ayuu wuxuu maray meesha maanta lagu magacaabo farjanno asagoo ay ujeedadiisu tahay inuu jannadii mar kale ku noqdo kadib socodkiisii ayuu sii watay waxaana hubaala xilliga nabiyullaahi aadam iyo xaawo ay jannada ka soo dhaceen inaan dhulku sida hadda uu kala goon yahay aan u kala goonayn ay isku dhiganaa dhulku oo qaaradaha iminka ay jiraan aan xilligaa jirin markuu uu muddo socday waxa uu sii maray maxaa la yidhahdaa ilaa hindiya ayuu tegey hindiya oo macno badan ugu fadhisa taariikhda soomaalida iyo aqoonta iyo dhaqanka soomaalida u fadhisa waxaa dhacay waxaa la yidhaahdaa kullukum min aadam qaala rasuulullah sala allahu calayhi wasalam kullukum min aadam wa aadam min turaab kulligiin waxaa tiin nebi aadan baa ka timaadeen dad yahow aadanna wuxuu ka yimi ciidda ayaa laga abuuray haddii lays weydiiyo tolow xaggee laga qaaday ciidda nebi aadan laga abuuray waxay u fududahay inuu uu sheego qofka Soomaaliga ee baaristan ama dhageystay ama asoo baaris gaar galay waxa la yiraahdaa markii aad doonayso inaad ku yeerto hooyada
waxaad u yeeraysaa hindiya oo waxaad leedahay hindo maxaad ka rabtaayoo hindiya ugu yeeraysaa hooyadaa baa la rabay inaad u yeertee jawaabtu waxay tahay hindiya waa hooyadii guud ee dadka oo dhan waa meeshii carrada nebiyullaahi aadam laga qaaday abootaxaawo iyadoo ku jirta raadintii wehelkeeda nebiyullaahi aadam ayay soo gaartay magaalada jadda la yidhaahdo hadda oo weli magaceedii wadata oo ayeeyo xaawo ku magacaaban magaaladaasi waxa ay leedahay sidii gobolka meel ku magacaaban si gaara ugu sii magacaaban xaawo oo la yidhaahdo baxaru xawaa balli biyaha oo badda ka go'an oo la yidhaahdo balligii xaawo ama baddii xaawa ayaa ku yaalla magaalada bartamaheeda ayaa ku yaalla waxayna taasi caddaynaysaa haddii halkaasi gobolka soomaaliya ku yaalla ee gada la yidhaahdo ay buulo xaawo ka tagtay xaggaana waxay uga tagtay baxaru xawaa meesha la yidhaahdo ayay uga tagtay markii ay muddo ku nasatay meeshaa gada la yidhaahdo ee jadda ah maanta loo yaqaano iswaadu u taqaano ayay dhaqaaq kala samaysay si ay u hesho wehelkii ay raadinaysay kadibna nebiyullaahi aadam calayhi salaam uu ka soo laabtay hindiya ayay ku kulmeen meesha caanka ah oo adduunyada maantay ay magaca weyn ku leh oo ay muslimiintu sanad walba iskugu timaado ee la yidhaahdo jabal carafa halkaa ayay iskugu yimaadeen nebiyullaahi aadam iyo xaawa haddaan intaa ku soo aruuriyo inkastoo ay dheer tahay xiriirka dadka soomaalida ama luqadooda ama dhaqankooda saamaynta ay ku leeyihiin taariikhda nebiyullaahi aadam waxaan u gudbaynaa taariikh kale waxa dadka ay garanayaan fircoon dadka waxaa loogu sheegay xoog looga dhaadhiciyo xoog loo dardarsiiyey inuu yahay nin magaciisa